السلام عليكم. maanta oo ay taariikhdu tahay 17 bisha 12 ee sanadka 2021 waxa uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu kulan gaar ah la yeeshay madaxweynaha dalka Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan. kulankaas oo ku qabsoomay jawi aad u xiiso badan oo walaalnimo leh ayaa madaxweynaha jamhuuriyaddu ugu horeynba waxa uu dhigiisa uga mahad celiyay soo dhaweynta diiran ee uu u fidiyay. waxa sidoo kale uu uga mahad celiyay garabsiinta dowladnimo ee joogtada ah ee dowladda Turkigu ay la garab taagan tahay dalkeena Soomaaliya iyo sida dowladda Turkigu ay nooga taageertay dhinacyo ay ka mid yihiin dhinaca amniga, dhinaca dhaqaalaha iyo COVID-19 ka oo xilligii adkaa lagu jiray ay dowladda Turkigu ina barbar istaagtay. madaxweynaha Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan waxa uu isna dhankiisa madaxweynaha uga mahad celiyay sida dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay isugu duuban yihiin una horumarinayaan dowladnimada Soomaaliya, isaga oo ganacsatada Soomaaliyeed ku adkeeyay uguna baaqay inay dalagyada kala duwan iyo kheyraadka dalkooda u suuq geeyaan dalka Turkiga si uu kor ugu kaco dhaqaalaha dalkeenu. labada madaxweyne waxay guud ahaan ka wada hadleen qorshayaasha sidii loo dardargelin lahaa xiriirka walaaltinimo ee labada dal ka dhaxeeya iyo iskaashiga, taasoo ay ugu horeyso dhinaca amniga, horumarinta dhaqaalaha, wax soo saarka, waxbarashada iyo caafimaadka iyo mawaadiic kale oo culus oo labada madaxweyne ay isla soo qaadeen. markii kulankooda uu soo idlaaday maanta oo Jimco ah waxaa labada madaxweyne ay wada oogeen salaadii Jimcaha, halkaas ay ku ducaysteen waxaana ay hoosta ka xariiqeen in xidhiidhkan walaaltinimo uu yahay mid soo jireena isla markaana la sii dardargeliyo oo la horumariyo. waxaa sidoo kale maanta ka bilaabmay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga meertadii saddexaad ee shirweynaha iskaashiga Turkiga iyo Afrika, kaasoo lagu bilaabay heer wasiir. dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya waxa uga qayb galay wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka waxbarashada iyo wasiirka beeraha, iyagoo halkaa ku soo bandhigay doorka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka ciyaarayso isku xidhka Afrika iyo Turkiga. waxaa kaloo aan ognahay dowladda Turkigu inay Soomaaliya ku leedahay safaaradda ugu weyn ee adduunka, taas oo muujinaysa xidhiidhka qotada dheer ee walaalnimo ee labada dal ka dhaxeeya. shirkaas golaha wasiiradu ay galeen waxaa la iskula jeexjeexay isla markaana lagu soo bandhigay qorshaha lagu wada shaqayn doono 5 sano ee soo socota, waxaana la isla gartay in la dardargeliyo isla markaana kor loo qaado hawlihii hore ee wada shaqayneed ee soconaysay sida dhinaca amniga, dhinaca waxbarashada, dhinaca caafimaadka, dhinaca maalgashiga iyo mawaadiic kale oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin horumarinta arrimaha bulshada, horumarinta beeraha. arrimahaas oo dhan waxaa la qorsheeyay habkii labada dhinac ay uga wada shaqayn lahaayeen 5 sano ee soo socota. madaxweynaha jamhuuriyadda inta uu ku sugan yahay dalkan Turkiga waxa uu kulamo daceedyo la qaadan doonaa madaxda iyo hogaamiyayaasha ka soo qayb galay shirka iskaashiga Turkiga iyo Afrika. waxaa sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyaddu uu waqti ballaaran siin doonaa jaaliyadda ballaaran ee Soomaaliyeed ee halkan ku dhaqan dalka Turkiga, isaga oo la qaadan doona culimada, jaaliyadaha, ardada dhammaantoodba kulamo kula qaadan doona inta uu halkan joogo. waxa uu dhageysan doonaa dareenkooda iyo sida ay ula jaan qaadeen dalka aan walaalaha nahay ee ay ku nool yihiin. madaxweynaha waxaa kulankan kala qayb galay wasiirka arrimaha dibadda mudane Cabdisaciid Muuse Cali iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka mudane Maxamed Cabdilaahi Ciise iyo sidoo kale safiirkeena inoo fadhiya dalkan Turkiga mudane Jaamac Caydiid. waad mahadsantihiin.